السلام عليكم صاحبي رسول الله وأنا عبدijaliil عثمان عبدijaliil برو يا دجال سعودان كنال كيرا نيردا Soomaaliyeed meel kasta oo daafaha caalamka joogtaan soo dhawaada Muqdisho Garowe Guriceel Boosaaso Berbera Djibouti Jigjiga iyo sidoo kale Goday Gacala geyga Soomaaliyeed meel kasta oo aad ka joogtaan saaxiibayaal waan idin soo dhaweynay Hargeysa iyo Berbera waa xusuustaa iyo sidoo kale Dhuusamareeb iyo Kismaayo magaaladeedii marka meel kasta oo daafaha caalamka joogtaan saaxiibayaal soo dhawaada waa kanaalkiini waa kanaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed halkan muddo bil ka badan wax muuqaal kuma soo gudbin sababtoo ah mashquulka adduunka waa dareemi kartaan kanaalka kale ee Abdijaliil show ayaa waqtigeyga oo idil aan geliyay marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkaga faa'iideeyo shalayto ayaa waxaan facebookgeyga soo dhigay muuqaal yar oo sawir ah oo aan kaga hadlay qaar ka mid ah AI tools ka aan isticmaalo sida joogtada ah waxaan rabaa muuqaalkan inaan idinkula wadaaga in ka badan 11 tools oo AI ah oo aan si joogta ama maalinle ah anigu Abdijaliil ahaan u isticmaalo kuwaasi oo bilaash ah adiguna aad isticmaali kartaa waxaan ognahay in AI-ga ama aqliga macmalka ah isla markaana dadku hadda ay adeegsadaan markii hore mustaqbalka waxa la jiray AI way laakiin already hadda mustaqbalkii ayaanu la noolnahay oo aanu joognaa AI-ga ama aqliga macmalka artificial intelligence-gana dhiigeena ayuu hadda la sii galay aniga Abdijaliil ahaan shaqo kasta oo aan qabto hadii ay noqon lahayd naqshadeynta inaan wax sawira hadii ay noqon lahayd inaan wax proofreading ku sameeyo hadii ay noqon lahayd inaan document diyaariyo script diyaariyo wax kasta oo nolosheeda kamid ah hadda waxa qaatay 67% waxa qaatay AI waana wax cajiib ah waxaad u baahan tahay laakiin si aad AI-ga ugu faa'iideysato markaana aad si wanaagsan u isticmaasho 100% isla markaana waxa aad gelaysaa aad jawaab fiican kaga hesho si loo isticmaalo AI-ga ama loo falgalay inaad barato waana wax loo yaqaan prompt engineering anigu technology-da ayaan in muddo ah ku dhex jiray isla markaana faham guudka waxaan ka haysto waxay tahay hadii AI-da marka aad iyagu la hadlaysay aad la dhaxgalaysay aad wax u dirsanayso aadan prompt fiican ku sameeyay isla markaana aad fariin casri ah u dirin jawaab qaldan ayaad heli doontaa waana wax loo yaqaan prompt engineer jaamacado badan ayaa hadda waxay soo kordhiyeen cilmiga computer science ay ku soo direen prompt engineer oo degree ahaan loo qaata waana sidii aad ula falgali lahayd isla markaana aad su'aal u weydiin lahayd AI-da anigu Abdijaliil hadii aan rabo maanta ChatGPT inaan wax ku qoro waxa laga yaabaa hal bog ama laba bog kamid ah oo prompt engineer inaan ChatGPT si aan jawaabta ugu haboon aan u helo hadii aadan sidaas sameeyna waxa laga yaabaa in waxa aad ka helayso AI-da ama ChatGPT-ga ama Gemini ama any other AI platform ay wax qaldan noqdaan ama wax light ay noqdaan oo xaqiiqada ka fog marka si dibli hadii aad rabto in AI-dan aan idin la wadaagi doono ay kugu shaqeeyaan waa inaad faham guud ka haysato isla markaana aad ogaataa qaabka engineering loogu sameeyo prompt engineer ama loola xiriiro ama loola hadlo tusaale ahaan hadii aad rabto inaad maanta meel ii dirto aniga Abdijaliil tukaankaas waxa iga soo iibaa inaad dhahdo halkaan ka baxa wadadaas mar left u leex right u leex halkaas marka tagti stag so that means engineering baad igu sameysay waad ii sheegtay waad ii hagtay dabcan waad ii hagtay sidaas la mid ah hadii aadan engineering fiican ku sameyn prompt engineering aadan ku sameynin tools kan aan idin la wadaagay waxa laga yaabaa mararka qaar kood in aadan ka helin jawaab sax ah especially ChatGPT markii aan qoraalka soo dhigay Facebook-geyga maalintii shalay dad badan ay ka soo falceliyeen dadka ugu badan waxay sheegeen inay isticmaalaan ChatGPT laakiin waxaan ogahay in ChatGPT qaarkeena 20% aan ka isticmaalno oo 80 kala uu naga qarsoon yahay ChatGPT uu aad buu u fara badan yahay GPTs ayuu leeyahay oo inbuilt tools ah oo isaga ku sii dhex jira kuwaasi oo aad si wanaagsan hadii aad u fahanto adeegsigooda aad wax badan kala soo bixi karto waxa ugu horeeyay aan muuqaalka ku bilaabi doono waxa ay tahay 11 tools ayaan idin wadaagi doonaa oo la xiriira AI-ga ama aqliga macalka kuwaasi oo aniga Abdijaliil ahaan si joogta aan u isticmaalo oo aan laptop-geyga laga waynin waxa ugu horeeyay saaxiibayaal waa ChatGPT anigu waxaan is adeegsadaa ChatGPT oo 4o ayaan isticmaala oo paid version ah hadii 25 pound baan bixiyaa bil kasta oo subscription baan bixiyaa so aniga waxaan isticmaalaa 4o anigu in muddo waxaan isticmaali jiray free version ka ChatGPT laakiin hadda waxaan u soo wadeegay ChatGPT 4o oo ah paid version ka I think 25 gini amal baan bixiyaa oo subscription ah bishii halkaasi oo aan helay deep thinking inuu ii sameeyo ama deep research uu ii sameeyo AI-ga gaar ahaan OpenAI-ga waxa iska leh ChatGPT waxaan ognahay in OpenAI ay leedahay waxa ayna ku sameyn kartaa in ay content ku qorto in sidoo kale ay jawaabo ku siiso in ay code ku qorto in ay wax ku translate kareyso in research ay ku daabacdo marka ChatGPT marka laga hadlayo saaxiibayaal waxaan aragnaa application kan qofka ChatGPT ayuu qoraa ama uu la soo dagaya prompt ayuu siinay jawaab ayuu helay laakiin ChatGPT intaas uu ka bilaarin waxa uu leeyahay ChatGPTs oo ah inbuilt ah hadii aad qaybta
ChatGPT aad tagto isla markaana aad explore GPT ku dhufato waxaad arki doontaa kumanaan ah oo ah tools ah oo lagu dhex dhisay ChatGPT-ga kuwaasi oo aad si joogta ah u isticmaali karta iyaga laftirkooda isla markaana adigu aad tababaran karta aad prompt siin karta oo inbuilt kuga ah aniga midkaan isticmaala hadda aan newska waxyaabaas u adeegsada aniga ayaa dhistay ChatGPT-ska baan guda galay aniga ayaan promptigaasi sameeyey prompt ayaan si aan waqtiga u save gareeyay marka ChatGPT haddii aad isticmaasho waxaad ogaataa inay jiraan sidoo kale GPTs ku dhex dhisan marka qaybta haddii aad tagto explorer haddii aad tagto waxaad arki kartaa GPTs fara badan laga soo bilaabo video laga soo bilaabo Canva inbuilt oo trends ah qaar ahaan sawirada loogu talagalay qaar loogu talagalay daatada loogu talagalay qaar coding loogu talagalay qaar research loogu talagalay qaar bidii waa arkays millions ba ku jira oo inbuilt apps ah kuwaasi oo ChatGPT uu leeyahay marka ChatGPT magaca guud ayuu ka yahay laakiin gudaha GPTs ayaa kugu diyaarsan kuwaasi oo si joogta ah aad ula falgali karta oo laga soo shaqeeyay oo waqti la soo geli dabcan waa open source oo dad hore loogu soo dhisay adiguna si joogta aad u isticmaali kartaa marka ChatGPT haddii aad adeegsanayso fadlan qaybta explorer tag halkaasna waxaad kala kulmi doontaa GPTs-ka oo diyaar kuuga ah oo aad u baahan tahay inaad adiga halkaas qaar la xiriira productivity writing la xiriira research la xiriira education lifestyle and programming dhammaan waxaad arki kartaa halkaani inay yihiin tools kugu diyaarsan ChatGPT marka ChatGPT saaxiibayaal waa toolka koobaad aan idin wadaagay haddii aad waqtigan joogto messenger ay laga maarmaan tahay in aad adeegsato si joogta ah si aad productivity fiican u yeelato marka ChatGPT saaxiibayaal waanu halkaas ayaan kaga bixi doonaa sidoo kale saaxiibayaal DeepSeek waxaan ognahay in China laga leeyahay wuxuu ahaa mid ka mid ah softwareadii dhawaanahan soo baxay ee la xiriiray OpenAI la xiriiray aqliga macmalka ama wax loo yaqaan AI-ga waa multi language waxa waaye waa tool isagana muhiim ah oo AI-da isla markaana aad ka heli karta luqadaha Shiineeska iyo Ingiriiska ayuu diyaar kugu yahay waxaad isticmaali kartaa sidoo kale content creation ka aad isticmaali kartaa translation ka aad isticmaali kartaa technical explanation aad isticmaali kartaa developerada qaar assistance way isticmaali kartaa code ka qoray marka mo isagana waxaad isticmaali kartaa saaxiibayaal DeepSeek in aad u adeegsataa research-ka dhinaca programmers dad badan waxaan inaan saaxiibana waxaan garanaa hadda si joogta ah isagoo programming-kiisa hadda u adeegsado oo u prompt gareeya DeepSeek isla markaana ku qora website ku dhis ayaan garanay oo ku coding marka haddii aad tahay programmer ama developer ama DevOps aad tahay waxaad adeegsan kartaa DeepSeek waana tool muhiim ah oo ay saaxiibayaal China ayaa laga leeyahay waxaad ogtihiin in uu ka mid yahay toolasha ugu saameynta badan ee waqti xaadirkan dad badan ay adeegsadaan markii ugu horeysay modelkan uu soo baxay waxay ahayd 2023 version 2giisina waxa uu soo baxay bishii May 2024 waana application muhiim ah saaxiibayaal AI oo ah kaasi oo si joogta ah u adeegsan karta DeepSeek marka loo soo tago so prompting ayuu sidoo kale u baahan yahay waa inaad taqaanaa sida loo prompt gareeyo ama loo adeegsado oo prompt loo siiyo haddii aad sidaas u isticmaashana natiijo wanaagsan ayaad ka heli doontaa sidoo kale saaxiibayaal StarryAI ayaa jira waxaa leh StarryAI baa iska leh an art company waaye sidoo kale waxaa loo isticmaalaa saaxiibayaal in textka ay u bedesho artwork ama ay sawir iyo farshaxan ay u bedesho marka StarryAI sidoo kale haddii aad rabto in inta aad qoraal gelisa aad sawir hesha sida for example thumbnail YouTube haddii aad rabto inaad adeegsato isla markaana aad sawiro la soo baxdo adigoo prompt gareynay waxaad adeegsan kartaa StarryAI waa tool kale oo muhiim ah oo thumbnailada lagu hagaajista aniguna si joogta computerkayga aan u adeegsado marka saaxiibayaal StarryAI waxa uu yahay toolkeena saddexaad ee aan anigu sida joogtada u adeegsada designerada content creatorada iyo dadka aan waqtiga u haynin Photoshopka ayaa si joogta u adeegsan kara StarryAI saaxiibayaal dhammaan toolskan waxaan soo dhigi doonaa qaybta description-ka waxaa sidoo kale ka mid ah saaxiibayaal Noloshaada ayaa iska leh waa all in one space with AI powered writing and organization tools productivity ayaa loo isticmaalaa saaxiibayaal Notion aniga muddo hadda sanad iyo bar ayaan adeegsanaya productivity-ga haddii ay noqoto documentation haddii ay noqoto daily task and project management Notion ayaan u isticmaalaa like waa meesha aniga documentiga aan ku kaydsado isla markaana aan productivity iyo documentiyada aan ku qorto waa saaxiibayaal haddii ay noqoto xusuus qorkeeda haddii ay noqoto taskiyada iyo usbuucan taskiyada iyo bishan taskiyada sanadka iyo meesha aan ku diyaariyay oo productivity task management project management aan u adeegsado waa Notion way saaxiibayaal waa free tool way
isagana template buu leeyahay waa app hadna waad dul soo degi kartaa telefoonkaaga web browser-kana waad ku furi kartaa marka Notion saaxiibayaal is such an amazing tool you can also try to it's for free but u tijaabin kartaa anytime saaxiibayaal auto generate ayuu ku sameynaa meeting samamarada blogyadana waa uu ku draft gareynaa haddii aad rabto in maybe minutes ama auto generation lagu sameeyo waxyaabaha aad ka wada hadasheen ama emailada sidoo kale qayb AI ayuu leeyahay Notion waa saaxiibayaal waa second brain ayay dadku dhahaan maskaxda labaad ee qofka haysta marka structure-kiisana waxa uu yahay mid cajiib ah waxa uu diyaar u yahay anytime inuu ku caawiyo marka haddii aad rabto project management isla markaana dokumentiyada weekly daily waxaad qoranaysa waxaad qabanaysa waxyaabaha si haddii aad rabto inaad ka fakarto sidoo kale Notion waa tool kale oo muhiim ah waana toolkeena afraad oo aan qof kasta oo dhalinyaro ah kula talin lahaa haddii uu noqon lahaa qof shaqaale ama haddii uu noqon lahaa qof dawlad u shaqeeya ama haddii uu noqon lahaa qof iskiis u shaqeeya in uu adeegsado sidoo kale saaxiibayaal Manus ayaa ku xiga waa AI tool waaye sidoo kale kaasi oo aad u adeegsan karta saaxiibayaal in aad visualization ku sameysa gaar ahaan content creatorada ayuu si gaar ah u caawiya sidoo kale dadka developerada ah iyo dadka 3D-ga create garay sidoo kale waa adeegsan karaan marka waa mainly for 3D and VR ka ayaa loo adeegsadaa toolkan sida animation ka hadii aad rabto inaad wax aad animate garayso productivity use ayaa sidoo kale loo isticmaalaa waa application kale oo muhiim ah aniguna aan si joogto u isticmaalo hadii aad rabto inaad 3D u sameyso hadii aad rabto inaad avatar sameyso hadii aad rabto in aad motion tracking sameyso streamerada ama streamer aad tahay si joogto waxaad u isticmaali kartaa sidoo kale Manus waxa sidoo kale ku soo xiga oo aad si joogto u isticmaali kartaa saaxiibada app-keena toddobaad oo ah Grok waxa iska leh Elon Musk ayaa iska leh waxa sidoo kale built in uu ku yahay oo uu ku dhisan yahay application loo yaqaan Twitter hore loo dhihi jiray laakiin hadda loo yaqaan X waana AI tool waaye waxa uu integrated ku yahay waxa lagu integrate garay X baa lagu integrate garay sidoo kale real time news summary ayuu ku siinaya waxa uu ku sameyn karaa inuu sawir ku hagaajiyo waxa uu ku sameyn karaa inuu insights ku sii waxa sidoo kale su'aalo iyo weydiin kartaa jawaabo rasmi ah ayuu ku siinaya so Grok sida saaxiibayaal sidoo kale hadii aad Twitter ku jirto qasab waxa ah in aad aragtay application toolkan waana toolkeena toddobaad waxa iska leh Elon Musk waxa loo yaqaanaa XAI baa loo yaqaan Elon Musk ayaa iska leh waana real time news summary ayuu ku siinaya waa tool aad wax ku generate garan karto su'aalo weydiin karta isagoo sidoo kale waxa uu kaaga bixiyay prompt engineering in aad fahanto oo aad taqaana sida loo command garay oo loo amro oo wax loogu diro oo loo adeejisto dhammaan toolashan saaxiibayaal haddii aad taqaana sida loo adeejisto oo luqadda Ingiriiska aad ku adeejisan karta waxaad ka heli kartaa fantastic maba result aad u wanaagsan ayaad ka heli kartaa Gemini saaxiibayaal waan wada naqaanaa Google baa iska leh waa flagship-ka waayaba oo ay leeyihiin Google Hub waaye waxa sidoo kale integrated uu ku yahay Gmail Google Docs ayaa ku jira research and productivity ayaana loo adeegsadaa waxa uu sidoo kale ku summarization kugu sameyn karaa ama dulmar guud uu kugu sameyn karaa emailada draft document and presentation document haddii aad rabto inaad draft galayso marka documentation aad hagaajisto waad adeegsan kartaa research topics direct from Google sidoo kale haddii aad rabto in research aad sameysto xogtii aad Google ka lahayd Gemini ayaa sidoo kale ku sameyn kara oo xaq fiican ku siin kara sidoo kale waa tool kale oo muhiim dad badan waa yaqaana Gemini si loo adeegsado same as ChatGPT marka Gemini waa insights-ka oo Gemini waa saaxiibayaal waa flagship-ka app-ka ah ee ay Google leeyihiin sidoo kale saaxiibayaal waxaa jira Gemini marka laga soo tago tools-ka kale ee muhiimka ah aniga sida joogtada Abdijaliil oo isticmaal waxa kamid ah ElevenLabs saaxiibayaal waa software company Mareykanka laga leeyahay kaasi oo codka lagu generate gareeyo sidoo kale script-yada ayaa cod kugu bedel kara ElevenLabs ayaa la dhahaa codka qaar codkan camal AI is no longer the future. It's your daily co-pilot. Whether you're writing, designing, planning, or organizing your life, waxa laga yaabaa inaad maqasho codkaas camal waxa lagu generate garay ElevenLabs ayaa lagu generate garay free version ayuu leeyahay laakiin anigu subscription ayaa bixiya $12 ayaan bishii bixiya soo markaan rabo inaan cod Soomaali cod Ingiriis script Ingiriis aan u bedelo audio aan u bedelo wuxuu leeyahay hundreds wuxuu leeyahay language ba ku dhisan qaar Mareykan ah qaar Ingiriis ah accents qaar Ingiriis ah qaar Mareykan ah qaar luqadda waxaad ku heli kartaa accents-ka rabto soo ElevenLabs waa tool kale oo muhiim ah oo anigu Abdijaliil aan si joogto u adeegsado waxaa sidoo kale idin soo haray saaxiibayaal oo aniga Abdijaliil aan adeegsada si joogto ah waxa loo yaqaan Grammarly saaxiibayaal waa tool kale oo isagana AI ah waa that you can use
waxaad u isticmaali kartaa extension ahaan baad laptopkaaga u isticmaali kartaa waxaad sidoo kale ku soo degi kartaa telefoonkaaga Grammarly waxaa loogu talagalay saaxiibayaal in luqadda Ingiriiska grammar check uu kugu sameeyo subscription waaye free version waa uu leeyahay I think maalinta wuxuu ku ogol yahay couple wuxuu ku ogol yahay inuu task inuu ka caawiyo laakiin waxa intaas ka dambe waxaad u baahan tahay inaad subscription ka qaadato Grammarly waa application muhiim ah haddii luqadda Ingiriisku aysan wanaagsaneyn isla markaana aad la shaqeysa dad luqadda Ingiriis si wanaagsan ugu hadla oo aad xafiis ka shaqeysa qasab waxa ah inaad la soo degto toolka Grammarly isla markaana aad ku tijaabiso luqadaada Ingiriiska ah qoraalada aad diraysa emailada aad diraysa aad halkan ku tijaabiso isla markaana aad si joogta u adeegsato marka Grammarly sometimes waa la isticmaala dadka luqadda Ingiriisku bilowga ku ah ama intermediate ka ah ayaan aad u adeegsan so Grammarly waa another tool oo muhiim ah oo adeegsan karta oo AI ah kaasi oo loogu talagalay in luqadda Ingiriisku uu ka saxa dhinaca grammar marka laga hadlo sida magaciisa aad ka arki kartaan Grammarly waxay u taagan tahay grammar so more correction ayuu ku siinaya saaxiib Microsoft Copilot waa muhiim sidoo kale saaxiib haddii aad team Microsoft tahay anigu I don't remember last time Microsoft isticmaala so Apple baan ahay person laakiin I remember back in the days waa isticmaali jiray so Microsoft Copilot waa muhiim haddii aad isticmaasho Word Excel PowerPoint this is an integrated application waxa iskale Microsoft waxaad laptopkaaga kula soo degi kartaa I don't think so had inuu I think inuu free ah uma maleynaa laakiin Microsoft Copilot saaxiib waa tool kale oo muhiim ah oo aad si joogta u adeegsan karta kaasi oo integrated aad ka dhigi karta for example document haddii aad qoraysa ama research paper aad qorayso jaamacadda exam laga sugay oo aad Word haysato ama Excel aad wax ku qorayso ama PowerPoint aad wax ku qorayso Microsoft Copilot ayaad extension ahaan ula soo degi kartaa sidaas ayaana waxaad ku suurtagalay in grammarka aad iska saxda sentence structure-ka sentence-kaaga iska saxda isla markaana si joogto ah oo wanaagsan aad u isticmaasha documentiyada aan kor ku soo xusay so haddii aad rabta in qoraaladaada ay noqdaan kuwa professional ah fadlan isku day inaad isticmaasha toolkan loo yaqaan Microsoft Copilot waa muhiim inaad adeegsato isla markaana si joogto ah aad u isticmaasho waxaa kaloo aan isticmaal saaxiib Descript saaxiib another tool waa toolkeena 11aad oo muhiim ah sidoo kale Descript ana waxaan u isticmaalaa haddii aan rabo inaan summary ka helo video for example video English oo maybe laga yaabo 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo oo aan rabo inaan wada dhageysto waxaan soo dejinaa videoga ama waxaan soo copy gareynaa linkiga Descript website-kaas ayaan furaya halkaasi ayaan waxa uu videoga ugu sameynaa scriptiga videoga ayuu iga soo saaraya so haddii aad rabta maybe speech aad jeclaatay ee luqadda Ingiriiska aad rabta inaad word u bedesho oo aad qoraal ahaan u hesho bedelkii aad subtitle-ka aad ka qoran lahayd waxaad sameyn kartaa especially dadka Ingiriiska luqadda Ingiriiska badanaya ayuu dadka Ingiriiska luqadda Ingiriiska baranaya ayuu aad toolkan u isticmaalaa haddii aad ay jirto khudbad Ingiriis ku baxayso oo aad jeclaatay oo aad rabta in khudbadaas Ingiriiska aad word u bedelato si aad adigu u akhriso ama adiga aad u practice gareyso waad la soo degaysaa muuqaalkaaga Descript ayaad tagaysaa muuqaalkaaga ayaad halkaasi ku soo upload gareynaysaa and then wuxuu ku sameynayaa muuqaalkii ayuu script kugu bedelaya so muuqaalkii oo script ayaad haysan kartaa marka waad soo eegi kartaa haddii aad rabto markaad banaanka aad scriptiga ayaad wadata oo aad print gareysan kartaa so Descript waa tool joogta aan u isticmaala aniga 3 sano ee hadda la soo dhaafay so waa another tool oo muhiim ah oo ka wanaagsan kana fiican toolal badan isla Microsoft saaxiib haddii aanu sii joogna oo aan dib ugu laaban waxaa jira Bing baa jira waa an application oo aad kula soo degi karta telefoonkaaga sidaas ayuu u qoran yahay Bing waa kaas isagana application-kan waa Microsoft Copilot waa saaxiib waa free tool waa isagana waxa uu la mid yahay ChatGPT ayuu la mid yahay iyo sidoo kale Gemini waa application aad prompt siin karta document ku turjumi kara research ku turjumi kara summary ku siin kara isla markaana telefoonka aad kula soo degi karta waa app free ah waa Microsoft ayaa iskale saaxiibayaal Bing isagana waa tool kale oo si joogto ah aad u isticmaali karto so 12 kan I think 12 tool baan sheegay oo maleynaa tool waxa ay ka mid yihiin toolasha anigu Abdijaliil aan sida joogtada ah dhiliga oo isticmaala marka laga soo tago kuwa laptop-ga uu jiro de oo aan maybe kuwan waxay qoseeyaan dadka ardada ah waxa laga yaabaa inay qoseeyaan so toolash kale oo aniga laptop-ga ku jiro hadda aad ka heli karta waxa ka mid ah maybe Cisco Packet Tracer baa igu jira laptop-gayga hadda aan arkaa sidoo kale waa Cisco Packet Tracer waa taqaana dadka network security barta ama network engineer-da baa isticmaala Cisco Packet Tracer waa tool oo si joogto ah aniga aan u isticmaalo oo
togeeda ku jiro so VS Code ayaa sidoo kale ka mid ah dadka code ka yaqaan waa garanayaan VS Code aniga si joogto ayaan u isticmaalaa waa tool kale oo muhiim ah oo si joogto aniga aan u isticmaalo laptopkayga so maadaama aan computer science student ah waa lagama maarmaan saaxiibayaal code-ka so VS Code-ka saaxiibayaal waa code kale aniga si joogto aan u isticmaalo oo laptopkayga aadan ka weyneyn salaam saaxiibayaal magacayga waan Nasra Abdidoon waxaan ka tirsanahay shabakada ConnectWave oo ah shabakad isku xirto ganacsatada iyo influencerska hadii aad u baahan tahay in ganacsigaaga lagu xayeysiiyo laakiin aan la asneed meel u soo martid dadkii ku xayeysiin lahaa waxa si toos u la soo xiriiri kartaa ConnectWave anigana qeyba ka ahay waxa kale oo shabakadu ku mideysan dad badan oo caan ah oo ay ku xiran yihiin malaayiin dad kor u dhaafayso hadii aad u baahan tahay inaad ganacsigaaga kobcisid waxa kala soo xiriiri kartaa nambarada hoose shabakada ConnectWave toolka kale ee aniga Abdijaliil ahaan aan marka laga soo taga VS Code toolka kale aniga Abdijaliil ahaan aan sida joogtada u adeegsada oo computerkayda aan laga weynayn waxa kamid ah VirtualBox saaxiibayaal I mean who does want two computers in one ma fahantay so hadii aad tahay maybe arday barta networking ka ama jaamacadda ku jira ama qof maybe for example hadii aad Mac isticmaasho waxaad u baahan tahay maybe sometimes Windows baa laga yaabaa inaad u haysta oo waxa laga yaabaa inaad u haysta Linux baa laga yaabaa so VirtualBox waa tool oo ah ku sahlay in computerkaaga another operating system aad ku soo dejiso waxa waa environment ku sahlaysa saaxiibayaal in aad isku haysto laba computer for example aan had Microsoft ayana waxaan isticmaalaa Mac baan isticmaalaa so VirtualBox markaan soo kiciyo waxa ii suurtagelaysa inaan Windows soo kiciyo sidoo kale inaan Linux soo kiciyo so Microsoft soo kiciyo so VirtualBox saaxiibayaal waxa loogu talagalay dadka mainly ardada ah studentska ama qofka raba inuu I mean hal computer laba ka dhigta tusaale camal aniga hadda waxaan isticmaalaa MacBook baan isticmaalaa laakiin sometimes haddii aan rabo inaan Windows isticmaalo operating system waxaan u baahan inaan VirtualBox soo kiciyo isla markaana aan ku dejista maybe Windows 11 aan ku soo dejiyo ama Microsoft aan ku soo dejisto halkaas aan ku isticmaalo ama Linux aan ku soo dejisto so VirtualBox waa sidoo kale tool kale oo aniga Abdijaliil ahaan laptopkayga aan laga weyneynin isla markaana aan si joogto u adeegsado so waxaan haystaa maybe machine waxaan haystaa hadda Mac OS baan haystaa laakiin sometimes waxaan u baahanahay inaan waxaan u haystaa inaan isticmaalo Windows so VirtualBox-kayga ayaan galaa waxaan soo kicistaa Microsoft waxaan soo kicistaa saaxiibayaal another operating system oo ah Windows baan soo kicistaa so VirtualBox saaxiibayaal waa tool kale oo muhiim ah oo ardada caawinaya isla markaana qofkii arday hadda ah oo jaamacad dhigta aan kula talin lahaa inuu barto sidii loo isticmaalo loo adeegsado dabcan waa jiraan dad badan oo garanaya haddii aadan garanayn fadlan description-ka noogu sheeg waxaan samayn doonaa muuqaal baan ka samayn doonaa tutorial baa VirtualBox saaxiibayaal aad baan anigu u adeegsadaa dad badan oo dhalinyaro ah waxaan kula taliyaa in ay ka war doonaan tusaale camal waxa uu ku sahlayaa saaxiibayaal laba machine saddex machine in aad computerkaaga dhexdiisa ku haysan karta adigoon resource halkaasi ku yareynayo dad badan baan isticmaala caalamka shirkado badan baa isticmaala dhalinyaro badan oo wax barata ayaa isticmaala ardadana aad bay u isticmaalaan so VirtualBox waa tool kale oo muhiim ah oo aan idin kula talin lahaa in aad adeegsataan si joogto ah aad u adeegsataan VirtualBox marka laga soo tago hadii aad dadka Mac isticmaalo tahay gaar ahaan jibyada M3 isticmaala ama M4 isticmaala waxa laga yaabaa inay kugu adkaata in aad isticmaasho VirtualBox-ka anigu aad buu ii dhibi jiray back in the days I remember laakiin waxaan hayaa alternative oo UTM ka saaxiibayaal sidoo kale waa another visual machine waaye oo loogu talagalay in aad Mac-gaaga ku soo kiciso marka VirtualBox-kaaga soo waa another VirtualBox way dabcan UTM ayaa loo yaqaan sidaas ayuu eegay isaguna waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa aniga waxaan ku haystaa hadda UTM-ka laptopkayga ku jiro waxaan ku haystaa Windows baan ku haystaa operating system waxa kale oo ku haystaa Linux baan ku haystaa so waa another extra waxa waaye machine waaye oo laptopkaaga ku haysan karta gaar ahaan dadka isticmaala M3 ama M4 hadii aad M3 isticmaasho ama M4 isticmaasho waxa xaqiiqa inuu VirtualBox ku dhibay laakiin alternative-ka toolka ugu wanaagsan aad isticmaali karto waa UTM sidoo kale saaxiibayaal waa tool kale oo muhiim ah oo aniga aan computerkayga ku haysto oo aan si joogto u isticmaalo Linux hadii aan rabo inaan isticmaalo I mean inaan maadaama network student aan ahay Linux si joogto aan u adeegsado waxaan isticmaalay UTM halkaasi oo aan ku soo kiciyaa mashiinadii igu jira Linux iyo Windows labaduba waan ku haystaa so UTM sidoo kale saaxiibayaal waa muhiim waana VMware sidoo kale waa uu jira isagana waa another tool oo muhiim ah oo alternative u ah VirtualBox-ka iyo UTM-ka waa sidoo kale aad adeegsan karto oo si joogto u isticmaali karto oo mashiino aad ku soo kicin karto waxa laga yaabaa tamiska VirtualBox iyo UTM in waxa laga yaabaa xogaa strange ay kula muuqdaan ama Greek ay kula muuqdaan laakiin qofka jaamacadda dhigta computer science dhigta si fiican ayuu u fahmayaa waxa aan ka hadlayso UTM
VirtualBox saaxiibayaal waa mashiinada ugu wanaagsan ee haddii arday aad tihiin jaamacadda dhigta aad waqti xaadirkan baran karta adduunkana laga wada isticmaalo waxa laga yaabaa in mashiin lagu siiyo isla markaana different operating system aad u baahataa laga yaaba so for you to use different operating system in one machine waxaad u baahan tahay inaad haysto VirtualBox aad haysta so VirtualBox saaxiibayaal sida loo soo taga oo Windows loogu shuba waa inaad barataan saaxiibayaal imagada loogu shuba unit inaad la soo degtaa micro waxaad u baahan tahay Windows 11 inaad la soo degto baad u baahan tahay isla markaana imagekaasi aad ku install gareyso VirtualBox waa such nice and fun way shaqo fun ah way UTM sidoo kale same way iyada ayaad la soo degi kartaa sidoo kale waxaad ku shubi kartaa imagada aan ku sheego oo Windows 11 baad ku shubi kartaa Linux baad ku shubi kartaa under waxaad haysan kartaa computerka waxaad ku haysan kartaa different operating system into one single machine baad ku haysan kartaa so guys these are tools anigu Abdijaliil ahaan aan sidii joogtada u isticmaalo marka laga soo tago Adobe oo aan wax ku edit garay oo dabcan everyone expecting inuu isticmaalo aan isticmaalo baad rajaynaysaa so my Adobe marka laga soo tago saaxiibayaal these are tools Adobe product marka laga soo tago these are tools anigu si joogta aan u isticmaalo kabkaadna waan ku daraya inuu dad badan kabkaad bay jeceliin saaxiibayaal marka intaas ayaan ku soo afmeeraynaa muuqaalkan waxay ahaayeen tooliska lagama maarmaanka ee aniga Abdijaliil ahaan aan sida joogtada u adeegsado noloshayda nolol maalmeedkaygana ay ku tiirsan yihiin marka haddii aad tahay nin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed oo qarnigan jooga saaxiibayaal teknolojiyadda bariga hore waxa la teknolojiyadda iyo AI-ga ayaa mustaqbalka laakiin already hadda mustaqbalka ayaanu dhex dabaalanahaynaa waa inaad fahantaa tooliskan sida loo adeegsado sida loo prompt gareeya sida resource kala duwan looga helay iyo sida loola jaan qaaday intaba marka aanu xoogaa model aan noqonna aanu maskaxdeena furno dunida aanu u diyaar garownay inaanu la jaan qaadno marka haddii aad Soomaaliya joogtay haddii aad daafaca caalamka joogtaba these tools fadlan isku day inaad la soo degto laptopkaaga aan explore garay they are all fun way anigu special technologiyada aad u jecel baan hayso each of these tools waan tijaabi waan arkay waan experience garay marka waqti ugu badan iyagan ku qaataa marka fadlan adigana isku day maskaxdeena aanu xir maskaxdeena aanu furno aanu haysano open mind waa inaanu haysanaa oo noo sahlaysa in dunida aan la jaan qaadno wax kasta oo cusub waxaan jeclahay inaan tijaabiyo aan isku day adiguna waxaan jeclahay sidoo kale inaan sameeyo oo aad tijaabiso especially waxa teknolojiyada la xiriira fadlan isku day inaad barataan inaad fahantaan inaad tutorial daawataan internetka inta aad adeegsanaysaan I mean social media aad baan u adeegsanaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ka faa'iideysanaa social media sida la ugu faa'iideysan lacag kama sameeyso dhaqaale kama sameeyno qabiil baa ku difaacna iyo nin madax ah oo meel fadhiyo that's shaqadeena waa waxaas waxay nolosheena ku soo kordhin karaan malaha maanta 12 in jifadaada iyo madaxa qof madax ah ama wasiirkaaga iyo waxaaga social media ku difaacda wax cimriga ka kordhay malaha kugu soo ziyaaday I mean in fact ma ku yaqaanaa qaarkood xitaa marka in still saaxiibayaal aad jifadiina iyo qabiilkiina iyo maamul goboleedkiina aad difaaci lahaydeen social media ana waxaan idin kula talinayaa in toolskan aad barataan xirfada aad samaystaan isla markaana aad nolosha la jaan qaadaan adduunka marka maalin kasta I mean hadda May baa lagu jiro already sanadkii quarter baa hadda laga soo gudbay maxaa ku hargalay maxaad qabsatay halkeed gaartay maxaad baratay sanadkan bal fariiso May baa la joogaa hadda and few months baa haray sanadkii kala bar buu ku sii socdaa adigu maxaa ku hargalay maxaad baratay maxaa xirfadood baratay yaad baratay network ma samaysatay tools cusub ma baratay xirfad cusub ma samaysatay halkee wax ku marayaan luqadaada ma dhistay I mean waxa micnaha adduunka u sameynaya waxaasi waay haddii aad qof dhalinyaro tahay micna ma ku sameynaysa in aad reerkaaga iyo maamul goboleedkaaga iyo siyaasiyiintaada iyo waxaas aad jees gareysa ama qof kale oo meelaha social media iskaga nacamlay aad waqtiga ku dhumatay ama stranger aad waqtiga ku dhumatay wax micno oo nolosha ku soo korin TikTok-geena haddii aad tagto for you page-ka such crazy ma fahant maalin kasta waan la ilmeeyaa wallahi for you page-ka Soomaalida marka qaarkood aan arko waan yaaba ma fahant please work on your for you page-kaaga ma fahant iska hagaajiya for you page Soomaalida waxay u baahan yihiin iska hagaajiyaan qof Soomaali haddii aad TikTok-giisa furto for you page-kiisa aad furta waad naxaysaa caloosha baa ku xanuunaysa waxa soo booday quran ah qashin ay ka soo booday for you page-deena waa mucjiso waa saaxiibayaal make sure fadlan marka TikTok isticmaalaysa I know TikTok isaga baa ku feed garay sababtoo ah wuxuu arkay algorithm soo u shaqeeyay waxaad adigu xiiseys fadlan work on that fadlan for you page-kaaga ha noqdo mid tutorial ku dhisan mid wax muhiim ah ku dhisan mid science ku dhisan mid cilmi ku dhisan mid wax aad ka faa'iideysan ha noqdo laakiin TikTok marka aad saa u furtaba hablay gorgordeeda iyo habal maxkamadiisa hadii ay ku soo baxdo great loss baad ku jirtaa waana lunsan tahay waxaad u baahan tahay in lagu badbaadiyo marka waxaan idin kula talinayaa dhalinyaro Soomaaliyeed balanteen waxay tahay inaanu wax kororsanna inaanu nolosheena iyo waqti jihdi badan gelina mustaqbalkeena wax muhiim noo sameynaa taas waa wax kale oo muhiim noo sameynaayo oo aan ka ahayn inaanu waqti gelina oo aanu dib u soo xisaabina
ma jirto marka fadlan dib aan usoo xisaabin aan ogaan halkeenu ka nimaan halkeenu u soconnaa maxaan noo hargalay maxaanu baranay dad maxaanu baranay maxaanu dhisanay cibaadadeena iyo rabbi alla ku xidhnaanshihiina waa inaanu diiradda saarnaa wixii intaas kasoo heray saaxiib aan waxaan u arkaa inaanu aanu lunsanahay marka guud iyo gobonimo idin rajaynaya muuqaalkan toolskaas aan idinkula wadaaga hopefully inaad waxun ka faa'iideen descriptionka ayaan idin dhigi doonaa kanaalkan waa kanaalka dhalinyarada Soomaaliyeed 50 kun waa aad gaarsiin la adin iska dhaaf 100 kun inaad gaarsiisaan marka barnaamijyada dhalinyarada dib ayaan u bilaabi doonaa halkan ee kooban fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay Abdijaliil bro kanaalka dhalinyarada fadlan subscribe sar oo kamid noqo dadka heer aniga iyo idinkoo isku duuban waxaan idin leenahay guul iyo gobonimo idin rajaynaya ha idin macaanaato